Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan idin salaamay asxaabtayda YouTube meel kasta oo aad adduunyada dacaladeeda aad ka joogteen. Waxaan picture-kan waa Kardashian family-ga Kardashian ma ahan family muslima, laakiin waxay leeyihiin dabeecado fara badan oo fiican oo aan aad anigu u fiiriyo. Kardashian waa gabdho hooyadood waa 5 gabdhood iyo wiil iyo ayaydood. Kardashian hooyadood waxaa la yiraahdaa Kris Jenner. Kris waxay guursatay nin, Kardashian bay guursatay. Waxay u dhashay 3 gabdhood iyo wiil. Way isfureen. Waxay guursatay Bruce Jenner oo ahaa ninka hadda naagta isku bedelay, oo ahaa orodyahan oo koobka qaaday, koobka orodka qaaday marke Olympic. Marke Kardashian waa 4 isku aabiya isku hooya iyo 2 gabdhood oo yaryar oo ku hooya ah. Kardashian marka waxaa ku jecel also Kris Jenner hooyada dhashay which is hooyadan hooyadeed way nooshaa, waan idinla wadaagi doonaa. Waxaan marka ku jecelahay maxay ahaytoy, waxaan ku jecelahay familigaas wax badan ayaa soo maray. Waa 5 gabdhood iyo wiil. Dadka Soomaalida waa midda inaga maqan. Familigu 5 gabdhood iyo wiil, family gabdho badan leh oo 5 gabdhood leh iyo wiil 6dooda iyo hooyadood. Wiilku waa ka gooni, laakiin gabdhuhu way wada shaqaystaan iyo macal hooyada. Waxay samaysteen also nolol fiican ay ka imaadeen oo Kardashian uu loo yarahaa ninka ugu horeeyo Kris Jenner guursaday. Bruce Jennerna uu ahaa 2 gabdhood oo yaryar ninka dhalay oo hadda naagta isku bedelay uu ahaa Olympic oo family dhisan ay ka yimaadeen. Kim 20 sano markay jirtay nin bay boyfriend ka dhigatay, way la seexatay, cajalad buu ka duubay ayaa adduunka oo dhan dhex gashay. Aad bay u yarayd, aad bayna uga yaxyaxday. Hooyadeed bay u timid. Hooyadeed fiidiyowgii gabadheeda laga duubay ee ay meel walba galay, waxay isku dayday, waxay u isticmaashay hooyo aad u aqli badan bay ahayd. Hala jaro, hala tuuro, hala gooyo ma dhihin. Waxay u isticmaashay Kim Kardashian showga la yiraahdo ee maanta siday gabadheeda u socaan baxday. Kim Kardashian iyo Kardashian show fiidiyowgaas ayaa Kim socaan bixiyay oo nin boyfriend u ahaa oo madow ahaa oo ay iskhilaafeen oo banaanka soo dhigay markay burgab gareeyeen oo isdagaaleen. Fiiri gabar 20 jir oo filankeeda qaawan banaanka la soo dhigay ayadoo nin wax la sameynaysa waa ceeb aad u weyn. 2 choice bay lahayd inay sun cabto istisho iyo waxay yeeshay kaligeed isma bixin lahayn. Family support hooyadeed ayaa support garaysay, caruurteedana way support garay, walaalaheedna way support gareeyeen. Waxaan ku jeclahay marka familigan also ninkii dambe guursatay Kris naag bay isku bedelay, aad bay ugu xumaatay, aad bay waqti badan lama hadlin, ilaa hadda iskuma fiicna because ninkaagii oo naag isku bedelay waa waxyaabaha qaracanka oo dadka soo mara. Wax badan oo up and down ah ayaa soo maray. Gabdhahooda rag badan bay wax dhex mareen, rag badan bay kala tageen. Gabadha la yiraahdo Kylie Jenner waa millionaire hadda. Waxay leedahay company-ga lipstick iyo makeup iyo waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan. Cunugii 2aad bay hadda dhashay. Shalay ma daraad bay dhashay. Cunugii 2aad bay dhashay waa tan ugu yar ilmaheeda. Midda ku xigto Kendall Jenner waa model dadka dharka xayeysiiya Hollywoodka. Masha Allah tabaaraka, gabdhaha qurux badan bay dhashay. Kim waxaa guursaday Kanye West, 2 nin hore ugu horeysay. Kanye West baa guursaday. Kanye West hadda way isfureen.
marka Kenya hadda ayada nin kale la socotaa Kenya Western naa kale la socdaa laakiin Kenya West iyo ayada hadda iskuma fiicna because Kenya West asaga naagu la socday laakiin Kim markuu ku arkay Saturday night showgan inuu wiilka ku jiro markuu ku arkay wuu masayr aad buu noogu xumaaday aad buu u xanaaqay waqti jar waa kii weesay ayaan dhexdaas u hees qaaday uu hees cusub soo saaray hooyadiis uu magac daray isoo noqo come back baby waa kii dhahayay Kim go'aan bay ka gaartay sida aan ka akhriyay waraysigeeda iyadoo oynaysa aan ka arkay waqti badan waxay rabtay inuu beerantay ilmaha la korsado aaba joogo u noqdo waqti galbi asagana markasta magaalo kale meel kale ku maqan yahay waxa kale oo soo jiray waqti badan uu rabay inuu Kim kala guuro magaalada ay degashay iyo hooyadeed agteeda oo uu meel kale la dago haddana Kim way diiday inay ka dhex baxdo reerkeeda iyo inay ka dhex guurto way diiday marka war maxaa kugu soo koobaya waxaan familigan ku jeclahay familigan gabdhooda niman badan bay dhex marmareen xataa Chloe qofta la yiraahdo Chloe waxay leedahay oo ka yar Kim ka yar waxay leedahay ana gabadha ugu dheer waxay leedahay gabar yar oo waxay maxay ahayd u dhashay basketball player asagana ayaa u dhashay hadda xataa naa kale ma u dhasho naago badan ilmo ka dhaldhalo dhowr jeer qiyaameeyay waxaasoo dhan baa soo maray heartbroken aad bay ugu xumaatay aad bay u niyad jabtay because cunug labaad inay la haysatay rabtay taas waa taas waxaa ku xigo maxay ahayd Kim Chloe iyo Kourtney waxay leedahay 3 caruur waxay u dhashay wiil cadaan ah hadda nin kale oo taatuuyo badan bay wada socdaan familigaas marka ilmo yar oo badan baa u jooga hadda mar walba up and down hooyadood ayaa 5 gabdhood hooyadood baa manager ah maalin xataa waxaa jirtay ay isfeerayeen Kim iyo showgooda markuu dhamaan rabay Kim iyo ay isfeerayeen iyo maxay ahayd Kourtney ay isdileen waxaan ku jeclahay familigan no matter what happen no matter qofkay guursadaan waa family isaysto oo midba midka kale taageero wax badan waa la caay filmaan qaawan waa laga diray maxay ahayd rag badan way kala tageen wax walba waa lagu sameeyay haddana waa family isaysto familigaas waa isaystaan dad muslina maahan waa dad gaala ah oo dhaqankooda dhaqan muslim maahan waa dhaqan gaalo laakiin dhaqankooda waxaan ku jeclaaday si kasta isugu xanaaqaan si kasta wax isaga sheegaan si kasta waa dad family oriented oo aad family ahaan isugu xiran hooyada waa hooyo aad maxay ahayd ilmaheeda riisad abalo isku wadata maxay ahayd hooyada xataa marmar lagu xanaaqo si xun loola hadlaad arkaysaa laakiin waxaas waxba kama soo qaada haddana waxooda way heshiiyaan way isku maslaxdaan way heshiiyaan waxaan hooyada reerkaa markaan fiiriyo waxa reerkaas isku wado gabadha la yiraahdo hooyada waa very strong hooyo ayadaa manager u ah waana hooyo adag oo aad u karti badan oo no matter what waxay go'aansatay familigeeda inay isku haysato hooyada xataa nin madow waxaan u malaynayaa hadda ay la degan oo muddo wada socdaan boyfriend waa dhaqanka gaalada waa gaalo laakiin familigan aniga dhaqankooda gaalnimada amaahan waxa aan aad u yaabay oo aan u jeclaystay sida 5 gabdhood iyo wiilka ay isku haystaan wiilka intaasoo lacag ay geliyaan intaasoo waxay bixiyaan intaas way jecel yihiin wiilka sida gabdhaha uma noqonin successful wiilku uma noqonin maxay ahayd and successful uma noqonin maxay ahayd and wiilku sida gabdhaha and uma noqonin successful laakiin maxay ahayd waxaa u noqday successful waxaa u noqday gabdhuhu ayagu showgooda show caalamiya wuxuu noqday
adduunka dhan laga fiirsado. hadda showgan cusub ayay Hulu show cusub ay hadda samaysteen, Keeping Up with the Kardashian, wuu dhammaaday. marka waxaan ka wada family kasta hadduu sidaa isugu xirnaan lahaa. hadda ayaga dad uma shaqeeyaan, ayagaa loo shaqeeya. family kasta haddii uu sidaas isku haysan lahaa oo isugu dulqaadan lahaa, family kasta waxbuu wada dhisan lahaa, waxbuuna wada qasan lahaa. sometimes markaan aniga ciyaalkayga ama ku xanaaqo, islaantaas Kris Jenner waa maamada wada dhashay, aad iyo aad ayaan u fiiriyaa, ayaan fiiriyaa. marka aan fiiriyo waxaa irahdaa dadkan ayagoo gaalaa oo muslin ahayn oo ilaahay aqoonin ayay haddana garanayaan inay family yihiin, inay noloshooda horay u wataan, inay isku wada shaqaystaan, inay ishaystaan oo ay wada noqdaan, oo ina ayaga dad u shaqayn oo loo shaqeeyo, inay ismaqlaan, inay isdhagaystaan. familigaas dabeecadooda way kala duwan yihiin, laakiin waxa dadka ay u daawadaan ama dadka ay u jecel yihiin waa unit, waa family ishaysto oo isjecel oo go-aan ku wada gaaray. waa familiga Soomaalida oo 10 sano ismaqlaya, showgooda 10 sano uu socdo, 10 sano socda show socda oo mar walba la oo intaas ilma dhalaya oo baby haysanaya oo maxay ay tahay xanuunsanaya oo wax kasta ku dhacay oo caajisayo. haddana intaas hooyadaas iyo 5 gabdhood filimkaas way wada wadeen, way wada suubinayeen, way wada joogeen, nolol bay ka samaysteen, meel bayna ka soo saareen, way wada gaareen. working together. waxa aan ammaanayaa waa familiga. haddii family kasta, hooyo kasta iyo ilmaheeda saas isugu xirnaan lahaayeen oo u wada shaqaysan lahaayeen, meel bay nolosha ka gaari lahaayeen. ama muslin ahaw ama gaal ahaw, dadku hadduu isku xiran yahay oo familinimadiisa adkaysto oo wada shaqaysto oo wax isku darsado oo xooggiisa iyo caqligiisa isku geeyo, waxbuu soo saaranaya, meel baan nolosha ka gaaraya. haddii I believe aaskooda waxaa u ah go-aan bay gaareen inay familygooda no matter wax ku dhex dhaco inay family inay ishaystaan oo isa kala tegin, no matter qofka ay guursadaan inayna kala tegin. waa 6 powerful women, 5 gabdhood iyo hooyadood. maxay haddana show kale samaysteen Hulu weli weeyaan, hadday duubayaan. I can't wait intaan ka fiirsado. and the reason aniga aad uma fiirsado showyadooda, laakiin showyadooda waxay ka hadlaan reality-ga, sida familiyadu u kala fikra duwan yihiin, sida aan dadku isku dabeecad u ahayn, sida familiga wax kasta ugu soo kordhi karaan, but in a same time geed laama familigu u yahay laama geed ka baxay inuu familigu ishaysto. siro bay kasoo bilaabeen ayagoo showgooda, maantana adduunka dhan baa laga fiirsadaa because lacag intaa la eg baanay ka sameeyeen, ganacsiyo kale ay furteen, waxyaabo kale. intaas hooyooyin bay ahaayeen gabdhoodu, gabar kastoo ka mid ah ilmay dhashay except Kendall Jenner. maxay ay tooy haddana intaas waa family isku xiran oo ishaysta. marka khayraad fara badan ayaan idin rajaynaya. the reason aan videogan uga hadlayo waa dadka familiga markuu ishaysto inay qurux badan tahay. dadkan waa gaalo, ma aan muslim oo dhaqan muslim kama raadinayno, laakiin waxaan ka raadinayaa dumar ma wada shaqaysan karo, waa been. gabdho iyo wiilal, gabdho iskuma xirnaan karaan, waa been. innaga Soomaalida sida u badan gabdhaha Soomaalida waan kala masayrnaa, waan isximinaa. gabdho markay wada dhashaan iyo wiilalna Soomaalida waxaa kala jiita nimanka iyo naagaha ay guursadaan, midba mid buu ka masayraa noloshiisa. tani waxayna tusinaysaa dadka walaaluhu haddaan lays wato oo laysla jiro oo laysku xirnaado, wax la wada qabsado, horumarka la gaarayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.